sidee mobile Samsung ka ah loo furtaa screen recording-ka? Sidaan ognahay mobilada Samsung ka ah ma lahan wax screen record. Ugu horeyn inta aan muuqaalka bilaabin, fadlan haddii aad channel-ka cusub tahay, waxaan kaa codsanayaa inaad channel-ka subscribe u saartid, muuqaalkana aad like gelisid si aan u gaarno 1k subscribers. Mahadsanid. Si aad u furto, ugu horeyn waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay setting-ka, kadib waxaad ka sii tagaysaa meesha ay ku qoran tahay display, kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay 8 panels, meeshaas ayaa on dhehaysaa, kadib panels ayaa ku sii dhufanaysaa. Panels markaa ku dhuftid waxaa ka sii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay people ayaad on dhehaysaa, kadib hoos meel ay ku qoran tahay Galaxy Store ayaa ku dhufanaysaa, kadib meel control center free meel ay ku qoran tahay ayaa soo dejisanaysaa. kadib markaa la soo degtid abka waxaad imanaysaa mobilkaada meesha screen-ka ayaa imanaysaa, kadib abka aad la soo degtay ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhuftid allow ayaa dhehaysaa, waxaad raadinaysaa meesha ay ku qoran tahay screen record. kadib markaad ku dhuftid hoos ayaad u daadegaysaa, waxaad sii raadinaysaa meel kale ay ku sii qoran tahay screen record. kadib add ayaa dhehaysaa oo calaamadaas ayaa taabanaysaa. kadib waad ka baxaysaa, waxaad aadaysaa qaybta sare ee mobilka, kadib waxaad ka raadinaysaa meesha ay ku qoran tahay edit-ka, meesha wax laga edit gareeyo ayaa taabanaysaa. kadib add ayaa dhehaysaa, hoos ayaad u degaysaa, kadib waxaad arkaysaa screen record waana ku dhufanaysaa.